Shirka Golaha Wada-tashiga Qaran oo ay ku mideysan yihiin Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta Sabti ah galay maalintii shanaad oo xiriir ah. Afhayeenka xukuumadda federaalka Maxamed Ibraahim Macalimo oo qoraal soo saaray ayaa wuxuu sheegay in madaxda Golaha Wada-tashiga Qaran ee shirka u sii ambaqaadi doonaan dood adag oo ay yeelanayaan. Madaxda ayaa waxay maanta falanqeyn iyo weli wada-tashi ka yeelanayaan cabashooyin la xiriira hufnaanta iyo weliba daahfurnaan la'aanta doorashada oo ay soo gudbiyeen midowga musharaxiinta bulshada rayidka iyo weliba wakiilada beesha caalamka. Ra'iisul Wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaana doonaya inuu la wareego mas'uuliyadda amniga dalka waxaana tallaabadaasi ku taageeray madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland sida ay sheegayaan ila wareedyo lagu kalsoonaan karo. Shirka Golaha Wada-tashiga Qaran ee afartii maalin ee lasoo dhaafay ka socda teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho ayaa weli is afgarad laga gaarin qodobada waaweyn ee shirka horyaala waxaana shirka uu noqon doonaa mid sii socda.